caaqil oo ku geeriyooday qaraxii foosha xumaa oo ka dhacay magaalada Boosaaso waxaanu Ilaahay uga baryaynaa jannada inuu geeyo eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen iyo shacabka reer Puntland oo dhanna Ilaahay u sameeyay iimaan uu ka siiyo waxaanu kaloo halkan uga ducaynaynaa iyagana dhaawacyadii ku dhaawacmay qaraxii foosha xumaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa iyagana inuu caafimaad degdeg ah oo sariic ah siiyo waxaan kaloo ku baaqayaa shacabka reer Puntland khaasatan shacabka Boosaaso inay ilaashadaan nabadgelyada Ilaahay siiyay nabadgelyada in laga shaqeeyo waa muhiim weeye laamaha amniga in laga shaqeeyana waa muhiim weeye maalin walba haddii qarax dhaco waxbayna ka harimaayaan dadkii ugu qiimaha badnaa waa ku dhimanaya maalin kasta bulshadana kama bixi karaan in dadkaasu Ilaahay waxaan ka baryaynaa insha Allah hadii Ilaahay idmo inaan dib dambe u dhicin sidaan ula socono laamaha amniguna waa ku daba jiraanin iyaguna ka sugeynaa insha Allah baaritaankooda iyo waxay qabtaan hadii Ilaahay idmo Ilaahana wax ka rajaynaynaa ay soo helaan wixii dhacdada foosha xun geystay. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.